بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة يضنا سورة مكية انت بدن صور كان مكي بي أبدين طيب سورة وسورة دي قيب تظهري وآيات كي يقوه الرئي النبي كسو دقي صلوات ربي والسلام عليه مركي القرآن كوب الله بنا يبه آياته اللي قوب الله ويبه آيات سيدة وكتصي حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ومسلم يسوس عليه وحيلها عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مركي وحي كوب الله بنا مركي يقوه الرئيسي وحي اللي قوب الله بيوحوها ريو إنه رياضه riyada markuu ku riyoodo sidii uu ugu riyooday bay u dhacaysaa oo waxay u iimaanaysaa iyadoo muddo sidii waa bariyay oo kale muddo sida lagu waday markii dambe waxa la jecelaysiiyay inuu dadka iskaga dhaxbaxo meelaha cidlooyinka uu iska tago meelaha cidladaas uu iska jeclaaday oo dadkii iyo magaaladii inuu ka dhaxbaxo asagoo meel buur jooga qaaro xira halka isagoo jooga oo keligii ah ba maalinkii dambe waxa uu yimid malakul jibriil waa uu yimid wuu qabtay markaasuu intuu ceejiyay oo cunaha qabtay wuxuu ku yiri akhri buu iqra buu yiri markaasuu yiri ma ana biqaarin wax ma akhri aqaano markaasuu yiri iqra mar labaad intuu ceejiyay buu yiri akhri war waxba ma akhrin aqaano مر صدحات بنت علاها كل عجيب وحكوري اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سيدي ونمرك النبي أخري صلى الله عليه وسلم سوى انتي نصوى قبتي أرجع حسن وملاها ما انت وابكور ما تبلايا كوها بستة إسلام وأدو حسن ينبي ماشي كسو على الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وي مدو حاسكي سأهيد markaasuu yiri khadiija maanta nafteedan u yaabay hal ay dadabur waa gariiraya hal ay dado adoo meel cidla iska jooga hadii lagu habsado soo baqimis waa dabeecad bashar waxwana ma filayo oo yaani wax way xagga ilaahay baa rasuulkaaga iimaanaya iyo rajadaasi meesha ma taalo ruux hadii wuxuu astaamo uu hayo xataa wuxuu yaani wax istiinaas waa iska dhicina laakiin ma jiro idadabu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khadiija nafteedan u yaabo waa isu baqay markaas khadiija waxay ku tiri waxba ha baqin bit ilaahay subhanahu wa ta'ala marnaba ku boojin maayo maxaa yeelay adiga wax weey martidana wada marti soorta qaraabadaad xiriirisa midka wax la baad wax tarta yaani wax weey xaq ayaad u kaalmaysa nin wanaagsan baa tahay oo bulshada hadda aad ku dhex nooshahay ninka ugu roon baad saas daraadeed adoon noocaas inuu ilaahay hoojiyo ama dhibaato ku keenmo dhici karto markaasay ka xaysay waxay u geysay ninay markaas qaraabo ahaayeen khadiijo waraqatu nawfal dhigi jiray oday aha oo yaani waxa way injiil yaqaanay oo kitaabka injiil qori jiray cibriyada iyo carabiyada iyo aqoon laha ninkii uu geeyay markaas uu waramay waxay tiri wiilka yarka dhageyso wiilkii markaa wuxuu yiri maxaad aragtay bal ii waran adeer markaas uu waramay nabiga sallallahu alayhi wasallam sida waxa ay qabsaday markaas wuxuu yiri waraqatu nawfal ninka shayga ku yimid wuxuu yiri waa khayr wadihi nabi Muuse uu yimid yaani waxiga uu keenay يعني ما ملك الجبريل مركز وحوري وشلايو وحوري الله مركا ددكا وكساريان oo tolka intay kula dagaalamaan dhulka ka eriyi doonaan marka ma noolaada buuri waan ku heelin oo garabkaagan istaagaya markaas uu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam aw mukhrijiyahum ma idbixinay ma dadkaygan iyo tolkaygan iyo reerkan aan ka dhashay hadda sidan ii jecel ba intay inacaan bay dhulka iga eriyi doonaan markaas nabigu wuxuu yiri waraqa wuxuu yiri haabu way ku saari doonaan wayna ku eryi doonaan maxaa yeelay waxa aad soo wadateed la iimaanayso nin la yimid horta ma jiro illa waa la eriyo waa la saaray buuri haddaan waqtiga ilaahay igaarsiiyana waan ku garab istaagayo waa ku helin marka aayadii ugu horeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi malakul jibril u keenay ayaa waxay ahaayeen aayaadkan iqra bismi rabbika alladhi khalaq halkaas waxay ka bilowday oo nabiga sallallahu alayhi wasallam aayadkii ugu horeeyay lagu bilaabay waxay aayadku marka waxa ay ka hadlayaan waa cilmi iyo barasho iyo qalin iyo waxa bilowday hawl cusub bilaawtay macna iqra aqribu rabbi subhanahu wa ta'ala iqra aqri waxa lagu waxyoonay aqri bismi rabbika muftatihan hal atay mid ku furfuranaya bismi rabbika rabbiga magiis
الذي ربك سو خلق أبوري مخلوقات كويدة خلق أبوري الإنسان إنسان كأبوري من علق حنشير حقيرك أبوري اقرأ آخر هذا وربك ربك الأكرم كان خير كبدن ديق بدن ويه الذي الله سو علم بري بالقلم قلم كبري أما علم بري ما علم وحو بري بالقلم قلم كبري علم وحو بري الإنسان إنسان كي وحو بري ما شيء أيو بري لم يعلم أوسن أبي وحنبي قال صلى الله عليه وسلم لقوا بالله أخري وحر ربك كو وحيون يا أخري وحي كان إلهي كو كان أخري أديكو أو كو بالله يو كفر فرانيا ربك مجعيس إلى وحكستا وحو كبر كوبا إلهي مجعيس إن لقوا بالله وبسم الله الإله بسم ربك بالله كب الله وهالكاس كالميسو إساق فرك دغو إساق كب الله ربك لقوا ليه مجعيس كب الله بنا ومدك أبوري يو أبوري مخلوقات كلهم أبوري خلق مفعول كذا واحد لوجوي يعني وحكستو الله أبوري بإساق أبوري عام بالله قد يجمعك طيب markii caam laga dhigay kadib ba hadana si khaas ah waxa loo sheegay insaanka maxay yeelay waxyiga nabiga ku bilaabanaya iyo quraankani insaanku si gooniyo u khuseeya saas daraadeed ba markii la yiri khalaqa makhluuqaadka oo dhan buu abuuray ba hadana si gooniyo insaanka loo sheegay waxa la yiri khalaqal insana min 'alaq insaanka ka abuuray xinjir ka abuuray xinjir dhiiga waa marxaladii yani wax weeyaan saddexaad waa marxaladii labaad ba dhigay مرحلة اللي مركور يعني وحوي دبع منيئة مرحلة اللي حكتا أيها وحي حنشيرتو هاي ومرحلة عتشبضون وإسبدل ككوبات يكون عاية إنسان كمركم منيئهان إسوكم منيئة صوبحه إسبدل ككوبات يكون عاية منيئة إني ليك إسوبد شوي وليك فريستو حنشير النغضب الله سبحانه وتعالى حنشيرتا ليك أبو كأبو ري إنسان وحا ليري أخري وتأكيد أخري با ليري وحي إلهي كو وحيوني ربك وامدك ديقض بدن او كرامين تبدن ربك سبحانه وتعالى وامدك كرامين تبدن معناه وحي موجينيسا وحي كان ربك ugu bilaabayo waa karaamayn iyo maamuus abuurka uu idin abuuray waa maamuus waa deeq way insaanka khaasatan abuurista uu abuuray waa deeq qalinkan uu baray waa deeq macluumaadkan iyo cilmigan uu yaqaano uu baray waa deeq يعني معاصيدا يذنوبتا وقليه وربي سبحانه وتعالى وأدن قادنا عقابته وسنكود الدجين وادق وربك الأكرم إلهي باسكا كاسيني محايا لي وخير بدنا وادق بدني الدومدي سيسقع وحسكسي واسكلام ماغا أدوه ما من الهيت من الآن كسبني ربي قابا كل رب سبحانه وتعالى وربك الأكرم ربي قاسي وامدك إنسان كبري علم بالقلم قلم كسيدا وحلوقو قربري علم بالقلم أدي بعض الزائدين اللي قدقوا أي علم القلم بالذكر قلم كأيوب بريء سيدا وحلوقو قرب ومركاسي يعني إن كستو قلم وحكو قرطو رنبا سوق ليس ملائكتي ما سوق ليس وحسوق ليس إنسان كي ما سوق ليس شين كهدو قلم وحكو قرا سوق ليس علم بالقلم وعام محل قدم يسي علم الإنسان ما لم يعلم إنسانك أو قصتك هذا لقاه الله إسقع أيها سيقوني هذانا لو تعطيه منان قوني لسي محيلي علم بالقلم وصوق لي علم الإنسان ما لم يعلم إسقع خاصته سيسوى فصنتها فيري أبو ريست مركا لقاه الله محلي خلق قبلي مركوري والله عميمي محل قدم بيسي خلق الإنسان من علق والله خصيصي علمي مركا لقاه الله محلي الذي علم بالقلم وعام ولا خصصه وحلي علم الإنسان ما لم يعلم وحنوطن ولا ينلو دغا انتي سبدن لكن انغا سيغونيه waxa la inoogu sheegaya qasadka laga hadlayo ee hadalku u dhacaya inaga ahad quraankan wuxuu u soo dagaya inaga ah nabi maxamed cid loo soo diraya inaga ah manaafacaadka inta badan wax cid intifaacsanaysa nicmooyinkan waa inaga sidaas way macna marka rabbi subhanahu wa ta'ala sida ibn qayyim uu leeyahay ibn aadamka nicmooyinka ilaahay siiyay usuushoodii baa meesha lagu sheegay abuuristii baa la sheegay rabbi subhanahu wa ta'ala uu abuuray midda labaadna cilmiga ilaahay siiyay buu sheegay subhanahu wa ta'ala ibn aadamku waa abuuris iyo cilmi laana wuxuu yimaadaa adduunka markuu iimaanayo
akhrajakum min butuuni ummahatikum laa taclamuuna shaya markaad adduunka imaanaysaan waxba ma kala garanaysaan wax alla waxaad garanaysaan ma jiro markaasaa ilahi subxana wa tacala in yar wax idiin baraya waxaa laydin siinayaa xubnihii yani waxa way qalbigii dhegihii indhihii xubnihii aad wax ku baran lahaydeen baa laydin siinaya kadibna nolosha aad nooshihiin baa tajaarib ka faa'iidaysanaysaan kitaab baa ilahay idiin soo dejiyo waad ka baranaysaan sunnadii nebigaad ka baranaysaan barashadu marka waa asaas waxay u tahay nolosha bini aadamka u tahay saas wey macana marka labadaa nicmo ee waaweyn buu rabbi subxana wa tacala meesha ku sheegay ayib marka u fiirso rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aayaadkii ugu horreeyey ee lagu bilaabay hadday kuwan ahaayeen maxaa laga fahmaya waxaa laga fahmayaa diinta nebi maxamed ilaahay usoo dhiibay waa diinulcilmi waay nebi maxamed markuu adduunka ilaahay usoo saaray adduunkoo mugdi iyo jahli ku jiraa ilahay usoo saaray subxana wa tacala wuxuu noqday qorax adduunka usoo baxay iftiin iyo cilmi iyo waxbarasho iyo in wax la qoro soo ma jeed in wax la qoro yani waxa weeyaan culuumta la diiwaan geliyo qalamkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala insaanka baray akhrintii baa la sheegay baridii baa la sheegay aaladii wax lagu baranayo qalinka ahayd baa la sheegay diintani marka waa diinulcilmi ummadda nebi maxamedna waa ummad cilmi wey ummad jahli maaha ummad jahli maaha waa cusub oo cilmi iyo waxbarasho iyo dadaalkeeda buu nebi maxamed sal lay slam adduunka kusoo biiriyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ummadiisana cilmigaasu ugu yeedhay in wax la barto waa asaaska marka diinta asaaska diinta wey jidkaa ninkii garab mara oo meel kale wax ka bilaabay waa khaldanya halkaa rabbigeen wax ka bilaabay waa in laga bilaabo oo ruux marka hore isku mashquuliyo inuu barto rabbigii subxana wa tacala xaqu ku leeyay waajibaadka rabbigii ku leeyay rabbi jidkeen loo maraa muxuu rabbi kaa reebay muxuu raalli ka yahay muxuusan raalli ka ahay maxaa naar ku geynaya maxaase janno ku geynaya ibni aadamku inuu wax barto wax ku yahay diinteenuna asaaskaasay ka bilaabataa saas macana akri ay maa yuuxaa ilayka wey waxa lagu waxyoonaya akri bismi rabbika muftatixan xaal aad tahay mid ku bilaabanaya bismi rabbika rabbigaa magaciisa alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadkao dhan abuuray khalaqa abuuray alinsaana insaanka abuuray min calaqin xinjir ka abuuray khaas ahaan insaankana xinjirta ka abuuray iqra' akri baa layidhi waxa lagu waxyoonaya akri wa rabbuka rabbigaana alakramu ku deeq badan wey mid khayrkiisa iyo deeqdiisu badan tahay deeqdiisana waxaa ka mida waxyigan iyo risaaladan uu ku siiyey baa ka mid alladii rabbigaasoo callama baray bilqalami qalinka baray oo qalinkooda waxa weeyaan hadduusan qalinkaas wax lagu qorayo ee ruuxu qalbigiisa waxa ku jira uu ku qorayo ayna jiri lahayn oo ilaahay bini aadamka uusan qalinka bari lahayn wax badan baa lumi lahaa maxaa yeelay yani waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kutubtiisa iyo cilmigii shareecada waxaa lagu xifdiyey qalinkaasaa lagu xifdiyey ummadihii hore iyo taariikhdoodii qalinkaasaa lagu xifdiyey waxyaalaha dhacaya qalinkaasaa wax lagu xifdiyey waxa la baranayo ama cilmi diiniya ama mid adduunyo qalinkaasaa lagu baranaya qalinku waa muhim qalinku waa nicmo weyn oo ilahi subxana wa tacala bini aadamka baray callama wuu baray alinsaana insaankii ayuu baray rabbi maa shay ayuu baray lam yaclam uusan aqoonin wuxuusan aqoon u lahayn buu rabbi baray subxaana wa tacaala oo macnaha waxa weye waxaa soo gelaya culuumta shareecaduna waa soo gelayaan culuumta dunyawiga ee manaaficda adduunyaana waa soo gelayaan callama alinsaana maa lam yaclam qaabkii adduunyada ugu noolaan lahaa sirta adduunyada taalla iyo waxyaalaha ilahay ku qariyay suu ula soo bixi lahaa horumar noloshiisa u samayn lahaa ilahay baa baray subxana wa tacala ma aha wax gaal keenay ma aha rabbi baa baray kan shareecada iyo kutubta samaawiga iyo qaabka ilaahay loo caabudana iyo suluukiyaadka iyo caqaa'ida iyo iimaaniyaadkana rabbi baa baray subxana wa tacala mana uusan aqoonin markuu imaanayo waxba muusan ka garanaynin macna kalaa ina alinsana layatqaa an ra'aahu istaghnaa ina ilaa rabbika arujca intaa markii laga hadlay aayaadka marka ka bilowda kalaa ina alinsana layatqaa ilaa suuradda aakhirkeeda laga gaadho dib dambey ka soo degtay intaa horaa markii hore soo degtay intaasu markay soo degtay qur-aan kaloo badan baa markaa soo degay aayadahan kalaa ina alinsana ilaa aakhirka laga gaadho marka dib bay ka soo degayaan maxaa yeelay qur-aanka qaar waxaa dhici jirtay inay qaarna horay soo dego qaarna dib ka soo dego nebigu marka sal lla lay waslam uu saxaabada yidhaahdo aayad heblo hadda soo degtay waxaad ku xijisaan aayad heblo waqti hebel soo degtay saasaa marka laisugu xijinaya amarka nabigaa bixinaya mid heble ku xijiya mid heble ku daba qora mid heble ku daba qora saasay ahaan jirtay marka kuwani waa dambeeyeen oo kuwa hore isku waqti maynan ahayn kalaa ina alinsaana kalaa ha ka joogay kalaa muxuu ka joogay insaankaas sidaa loogu nimceeyey
كفرك النعمة هدايو كلا أبال درده هي النعمة أوكو كفرنا يهدايه إن الإنسان إنسانك لا يطغى وقوقا محو وقوقا محاق وقوقا يكبر كوبحني أن رآه إنو إسو أركو درتد بوقوقا استغنى مدوق توما إنو أن رأى إنو أركه نفتيس إنو أركي استغنى إساقو أو ديق تومي إنو إس أركي إساقو ديق تومي وننا أنو باهنين تادرات ديق بوقوقا إن إلى ربك حقي سوء هذه الرجعة نقشد رأيت بالكور الذي متك ينهى ريبي عبدا أدون ريبي إذا قرتي صلى أدون كاسي أوتكني أرأيت بالورن إن كان هدويهي كاسلاد اللو ديديهي على الهدى هنونك كوركي سادوك السوغين أو أمر هدو أمري بالتقوى الله كعبسي هدو أمري بالكور كان سلاد اللو ديدي أرأيت بالكورن إن كذب هدو بيني كديدي صلاة أديدني إن كذب هدو بيني أو تولى أوجسدي ألم يعلم يوسن أغين متكاسي بأن الله يرى إنه أركيه كلا إن الإنسان لا يطغى صون نعموين إلهي إن السيئة لك ما صور شكل إنسان كوحا لو قبها النعموين كإلهي إنه كالشكريو وكما هالعليم مركا إنسانه شكر الدردة إيا مهالعلا أنت إيا اعتراف لأنت النعموين كإلهي هذا الاعتراف إنه بلورد شوج إنسان كيسيدا الله قال يا شلع حنشرت لقى أبوري ليك حن لقى أبوري حدنا وحلا بري ما أنت وكبريا إن الإنسان لا يطغى وقوقيا محو قوقيا الرأه استغنى وحو إسو أركيا واعتقادينيا ونفتي سو أركيا إنه كم مرمو إلهي سبحانه وتعالى ساس سو أركيا حوغا حولا أمرك لسيو حوغا لسيو وحوغا عقليا لسيو وحوغا ملكيا لسيو إن يرمركي لسيو يرهقاكتو وابا إسهال ماما يايو وحوغا أقادنا إنه سنعدنا بأباهني إلهي قيسيينا إنه كده يقتومو أركيا إنه الرسوش الراعة إنه كده يقتومو يسو أركيا حق إنه قاطع إنه كده يقتومو يسو أركيا إنه إلهي عابد إنه كده يقتومو يسو أركيا وحبا إنه سن أباهني بيسو أركيا مرهدو تان نفتي ساعتقاديو مركا وقوقيا مركا تاسا كبحينيسا إنه قوقو إنسان كواسدا وحالي مركا إن إلى ربك الرجعة سيدا دون طبا أقوقي لكن وحال وقاليسا أن حق الربي بيعلنتو أهات اسكي قوقا ديك سو إلهي انتو وحكسيي ماذا كوقوقي ربي وحكسييات كوقوقي أيام لقوع علين دونايو استقال كل حساب تميتون أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى آيات كاسي وحي كسو دقيان ويكهل ليان نين ليلة هذو نين يعني وحوي نيك لدي تشري أبو جهل وضياشي ريق قريشات بكمد هايو وضي خير ترنبوح خير لاوأ ونبي صلى الله عليه وسلم رقي آدو النبي بكمد ها سيدا حديث أي بخاري غير كي صار إنه كتوسي مال المال كمد أبو أضياشي ريق قريشات وحكي إلا أنت بدن كعبة حريرة هذه فريسين شرينه يسوي إيمان شري ماشى صار قراء وهيدا يسوي إيمان شري وحكي لما محمد بقى أنتم ماشى يماتوا وهرتي نسوي استاغ بوجهك عرض كوح حقامية هرتين هرتين أنتم فرصنا بوجهك عرض صار سرايو عرضوا معنا وجهك يهرتين يعني كبر يا صوما إلهي بان خطر سيهدو مرضا بالسدايله inaan isaga oo sujuudsano wajiga dhulka hay inaan luqunta kaga istaagin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa yimid sidii caadadiisa ahayd kacbadu yimid uu tukaday markuu sujuuday buu soo dhaqaaqay Abu Jahl inuu ku istaago raba markuu damcay waxoogaa markuu soo socdo ku soo dhaweeyay baa waxa la arkay Abu Jahl oo gacmihiisana ku gabanayo inta isaga hormariyay ku gabanay dibdibna u gurayo carray hormaxa ku dhacay wadig sii qabaamahay gacan ku gabashiyo carbu bilaabay inuu dibdib u gurto markaas wuxuu yiri waxaan ku dhaartay laatiya cuzaan ku dhaartay waxaan arkay buu yiri god weyn oo naar ah oo aniga isaga loo dhaxeeyo iyo garbabiyo iyo hawl iyo shadaa'id baan arkay saas daraadeed meel aan gali waayay noqoto saasan dib ugu soo gurtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri لو دنا مني
لاختطفته الملائكة عضوا عضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلهي بان كل دارتي هدو إيسو دوان لها ملائكة حبن أكل الضف لهيد برسول صلى الله عليه وسلم يعني وملائك قرب بيدا إيه وحن أركي وملائك نبي الدفاعي صلوات ربي وسلام عليه marka haduu wax yar lugsi qaadi laha laba arkeen xubin baa loo kala qaadan laha isaga wala kala dhufan laha macna sidaas weeyaan marka ninka way ninka nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka la sheegaye adoonka ilaahay salaada u diidan waa Abu Jahl adoonka salaada loo diidan yahayna waa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam saas way macna qisadu marka rabbi wuxuu leeyahay marka araayta bal ka waran bal adoonka mal ninka reebaya adoon tukanaya salaada u diidan bal ka waran soo wax la yaab lama bini aadam waa cajiib asaga laga rabay inuu tukado salaadiisi ka tago diid waajibkiisi diid lagu kari waa inta haddii ku gaabsan lahaa wax ma ahaate oo banaankiisaas macaasidiisa iyo gaalnimadiisa la socod ma yeeline kii tukanayay waajibkiisa gudanayay baaba ka baxsan lahaa soo qisal yaab lama mar bal ka waran ninka adoon tukanayo ilaahay dartii u tukanaya salaada u diidan bal ka waran kaas bal ka waran wala yaabe ka uu salaada u diidan yahay haduu hanuun ku dul sugan yahay oo jidkii saxda ah uu hayo waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ama uu ba amrayo adoomada uu ugu yeedhayo alla ka cabsi iyo iimaan iyo taaco iyo khayr iyo ilaahay hal caabudo haduu ugu yeedhayo dadka ka war hadii aad ruuxa salaad u diido laakiin kaad salaada u diidayso uu qalloocsan مثلا يهودي تكن هي salaad u diiday ama nasraani tukan haya salaad u diiday ama mid salaad aan sharci ahayn tukanaya u diiday ama shiici intuu dhagax dhigtay meesha dhagaxii ku forforsanaya salaadi u diiday taasi waa la garowsan karaayo jidku haya khaldan oo salaadu salaad saxsan ma sooma garbay noqon kartaa diidadaas laakiin waxa la yaab kale wax weey kan uu salaada u diidayo jid saxana uu hayaayo uu saxsan yahay dadkana alla ka cabsi buu ugu yeedhayaa jidkii toosnaa buu hayaa alluna u tukanayaa meel laga soo galo oo salaad loogu diido ma jirto saa'ita hadana waa ku dhiiranaya ninkani iyadoo ah buu hadana salaadii u diiday waxaaba ka siiya badanba araayta in kadhaba wa tawalla ka waran kan salaada u diidan ka tukanaya haduu beeniyay wixii rumeelay xaqii buu beeniyay markaasuu hadana ka jeesay walintu isku darsaday fiir waa marka koobaad isagu horta waa beeniyay wixii rumeel la yiri laga rabay waa beeniyay xaqi raac la yirina waa ka jeesaday inta haduu ku gaabsan lahaa dib lahaateen inta intuu sameeyo hadana wuxuu ku daray kii tukanahay inuu salaada u diido waxa ka siiya badan ka tukanaya salaada uu u diidayay jid toosan buu hayaa waa kuma yahay dadkana alla ka cabsi buu ugu yeeray inta markaad isu darto waxa ku soo baxaya insaan يعني وحويان خلدن او aad u khariban oo sinaba aan gar ku lahayn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala la dagaalankiisa maryaha u dhigtay oo isu qaawiyay oo waxba reebanin ba meesha kaga soo baxay waa Abu Jahl ninkaas macna saas way macna tayib kalla ka jooga insaanku ee innal insana insanki la yatghawu qaqa arraa inu arkay daraadeed buu u qaqahu naftiisa inu arkay raadu bi macna iyo calimada iyo af'al qulub يعني وحويان مارتي شيء نفتي سيبا فاعلنا مفعولنا ونقول كرا معنا لا مفعول بيننا قادن الرآه أي رأى نفسه هو الرآه إنه إسو أركي درتد بأقوقيا استغنى إساقو ديق تومي إنه إس أركي إساقو ديق إنه ديق تومي وإسان عدنا أباهنين إنه إس أركي درتد أرمكا درتي بأقوقيا تاساقو بعنيزة إنه قوق إن إلى ربك حقي سوء هذه الرجعة نقشد وحلا قوقول لك كبربا والله عنون لعبب حق إلهي بالله الله من دون هذا الكواهن شباب أرأيت بالكورا الذي متك ينهى الربي عبدا أدون ربي إذا قرتي صلى أوتك وأنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ربي ينوى أبو جهل أرأيت بالكورا الذي متك أبو جهل ينهى الربي عبدا أدون أنه محمد إذا قرتي بالربي صلى أوتك يصلاة ودمعه يصلاة أودي لقنتان كي يستاقيو نلك بوجهك مصاري كانوا تاقين أرأيت بالكورا إن كان هدوية هي متك سلاد اللودي ديهي ونبي محمد على الهدى هنون كركي يتصنان هدوك سجيها بالكور أرأيت أو أمسه أمر هدو أمري كسلاد اللودي ديهي نبي محمد أمر هدو ضدك أمر بالتقوى الله كعبسك هدو أمره
asagana waa toosan yahay dadkana toosnida ayaa la kacabsigaas ugu yeedhaya ninkii marka salaad loo diidi lahaa ama lala dagaalami lahaa ama laga hor imaan lahaa ma ah ara'ayta bal ka waran in kadaba hadduu beeniyey kee beeninay ka salaada diidan Abu Jahl ninkan salaada u diidan adoonka hadduu beeniyey oo rumayn baa laga rabay uu beeniyo wixii rumeen la yiri uu diiday bal ka waran oo watawalla hadana uu jeesaday oo xaqi raac la yirina uu ka jeesaday inta ninka isku daray bal adigu ka waran xaalkiisa soo la yaab male bini aadam halkaas uu heerkaas u gaara macna saas weeyaan yani waxa waa xaaladda macnaha waxa mar walba tan oo kale waa jirtaayo dawaaqida iyo mujrimiinta dadka ahlul xaq ayaguna ijraamka iyo dambiga iyo kufriga iyo gaalnimada ku kacay dadka ahlul xaq ahlul iimaanka ee saalixiinta iyo culimada iyo ducaadana xaqa kula dagaalamay oo diinta u diidan oo diinta Ilaahay la isku xukumo diidan oo diinta Ilaahay lagu dhaqmo diidan oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la hirgeliyo diidani waa Abu Jahl oo kale saas laana ayagiina ka tagay inta mayna ku gaabsanina inay dadkii watay kula dagaalamaan oo u diidana waa ku dareen dadka ay la dagaalamayaan ma khaldane jid toosan bay hayaan waa qumayhi alla ka cabsi iyo diin iyo Ilaahay la caabudayna dadka ugu yeedhaya ayaguna waa ka hortaagan yihiin waa kala dagaalamayaan Abu Jahl oo kale way dhaqanki Abu Jahl alam ya'lam yusan ogayn ninka adoonka salaada u diidayay bi anna allaha alla yara inuu arkayo war ninka nacasnimadiisa miyuusan ogayn rabbi inuu arkayo subhanahu wa ta'ala waxa keenayba inuu sida u dhiirado oo uu u qooqo wuxuusan ku xisaabtamayn inuu rabbi arkayo subhanahu wa ta'ala adiga hadaa rabbiga inuu arkayo aad ku xisaabtamayso oo kula socdo oo ku maqlayo oo ku ogyahay hadaad ku xisaabtamayso waxaan kale ku kicimaysa saas macna maxay yeelay hadaad rabbiga subhanahu wa ta'ala u caabudo sidii adigoo arkayo kale ama sidii isagoo ku arkayo kale taad u caabuday sidoo kale u dhaqmimaysa alam ya'lam yusan ogayn bi anna allaha alla yara inuu arkayo isaga iyo qaabku u dhaqmayo inuu arkayo aragtidaana waxa ka laazimaysa inuu ciqaab marin doono miyuusan ogayn sidoo markuu ku socdo sidoo haduu socdo macna kala ha ka jooge laylam yantahi haduusan ka joogsanin haduusan arrinka ka reebtoomin la nasfa'an waanu dhufanayna oo waa dhufanayna bin nasiyati foodaanu dhufanayna ama waanu gundin la nasfa'an waanu gundin oo waanu gundinayna bin nasiyati fooda nasiyatin food baanu gundinayna foodaasoo kaadibatin been sheegta beenalay foodaasoo khaati'atin yani wax weeye gafsan falyad'uha uu yeedho marka naadiyahu golihiisa ha u yeedho ragga la fadhiistay tolkiya ha u yeedho sanad'u annaguna waxaan u yeedhi doonaa buu rabbi yiri az-zabaniyata malaa'ikta naarta zabaniyadu yani waxa weeye waa askarta xabiska way askarti xabiska iyo jeelka ayaanu annaguna u yeedhaynaa kalla ka jooge ha ka joogo wuxuu wada ninkaasi ee la tuti'hu nabi maxamed ha atee warku wata ha ka yeelin wasjud sujuud oo rabbiga u sujuud waqtarib dhawow oo rabbiga wax ku dhaweeya samee hanjabaad baa la daloo kale waa loo hanjabay hadduu dayn waayo waxa uu wado iyo diinta ilaahay uu la dagaalamayo iyo adoomada uu salaada kala dagaalamayo iyo khayrkan uu ka horjeeda hadduu dayn waayo la nasfa'an bin nasiya yani waxa weeye safciga waxa la yiraahdaa nasfa'anta waxa la yiraahdaa marka inta shayga la qabto xoog loo dhuftaa la dhahaa xoog loo dhufto saas weey macna ama macna waxa weeye gundhinde ama dhufashade ama qabashade inta wala dhigi kara macna foodaanu qabanayna rabbi subhanahu wa ta'ala foodaanu qabanayna macna laga wada nasiyadu waa macna waxa weeye waa timaha meeshan fooda la yiraahdee yani waxa madaxa qaybtiisa hore ku yaalo waxaana inta badan loo isticmaalaa fooda qabashadeeda marka ruuxa la dulaynayo oo hoggaanka si fiican loo gelinayo fooda la qabtaaba la dhahaa food qabashada waxa laga wadaa waa meeshii ugu sareysay ugu sharfnaa ugu karaamo badnay halka hadii la soo qabtay macna wax dhulka lagu soo dhufanaya karaamo waa dhamaatay marka fooda ugu sareysaanu qabanayna halkaas la soo qaban foodaasi waa food beenalay alla qabani oo haddana gafsan oo foodu miyay gaftaayo been bay sheegtaa ya foodu waa timahaas oo waa la iska xiraa sooma been miyay sheegtaa ma se gaftaa waxa laga wadaa ninka fooda iskale baa beenaala ah gafsanna saas macna ilaa marka qaarkood xubinka xubnahaaga mid kamida ayaa inta la cabiro
baa adiga laga wadaa fooda laga hadlayo waxa laga wadaa ninkii abi jahl baa laga wadaa foodiisi isagaana beenaale ah isagaana gafsan afkana been buu ka sheegayaa markuu hadlayo waa beenaale dhaqan ahaanna waa u gafsan yahay oo jid khaldan buu ku socdaa midka waan qabanaynaayo si adag baan u qabanaynaa rabbi subhanahu wa ta'ala markii la qabto faliyad'u naadiga waxa la yiraahdaa yani waxa way golaha la fadhiistay lagu sheekaysto lagu shahacabe lagu qaxweeyo dadka inta badan kula fadhiistay saaxiibada ee la sheekaystaan naadiga la yiraahdo marka tolkii iyo naadigiisii iyo dadkii la fadhiisan jiray ee u gurman lahaa ha u yeedho kuwaas ciidan haga dalbto sanad'u zabaniyata waxaan u yeedhi doonaa rabbi subhanahu wa ta'ala az-zabaniyah zabaniyada waxa la yiraahdaa waa malaa'ikta u xil saaran cadaabida basharka wixii in la cadaabo la rabo malaa'ikta u xil saaran ee cadaabka mas'uulka ka ay khaznadaha cadaabka haya cidii la cadaabayana loo dhiibo waardigana ka hayso ilaalisa kuwaasa la yiraahdaa zabaniye la yiraahdaa anagu malaa'ikta zabaniyadanu u yeeraynaa oo jeelka cadaabka mas'uulka ka abaan u yeeraynaa bal isagu tolkii iyo ragiisi ha u yeedho ma waxba meesha uu ka qaban kara ilaa adduunka markuu joogo wuxuu ku faanay tolbu ku faanay nabi maxamed wuxuu kula dagaalamay waan reer baan oday baan ahay waa lay maqlayaa soo ma jeed maanta waxa la leeyahay dadkiisi ha u yeedho anaguna malaa'ik baan u yeedhaynaa rabbi subhanahu wa ta'ala hayeelin baa la leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam warkiisa hayeelin diidada uu salaada ku diiday hayeelin dagaalka uu kugu jiro ha ateecin taada wado wuxuu doon isagu ha sameeyay sujuud oo rabbiga u sujuud subhanahu wa ta'ala oo u tuko dhawow oo wax ilaahay ku dhaweynayo oo taacadiisa ku dadaal wasjud waqtarib sahih muslim waxa ku sugan min hadith abi hurayra nabigu sallallahu alayhi wasallam halka markuu marayay inuu sujuuday saxaabaduna ay la sujuudeen ridwanullahi alayhi marka waa mawaadiicda sujuudu ay sunnada sujuudu tilaawa la sunnayo macna kamid waqtarib sujuuda iyo dhawaanshaha waxa la isugu xijiyay ilayna culimadu لأن مركو أدونك السجود سيه ومركو ربك يقول واشا بديه سيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى يعني وحوي ربك يقول واشا بديه ومركو السجود سيه هو معنا ساسويا كلا هكتشوغي ننكاسي هدا يوحا وده لئن لم ينتهي هدوسا كريبتو من دقالك او دينت إلهي كولتشيرو رسولك أولا دقال لما يهدوسا كريبتو من لنصفعا waanu gundhinaynaa oo gundhinaynaa ama waanu dhufanaynaa oo dhufanaynaa binnaasiyati foodaanu dhufanaynaa naasiyatin food baanu dhufanaynaa kaadibatin oo been sheegto beenalay ah khaati'atin oo gafsan kaadibatin xagga u celi hadalka khaati'atin waxaad u ceegsaa xagga ficilka saas macna yani hadalkiisuna waa gafsan yahay waxaan hadalkiisuna waa been ficilkiisuna waa gafsan yahay saas macna tayib فليدعوها ويادو مرك ناديه قليه سلفريستها ويادو يددكيسها ويادو سندعوها نغيرنا أنقنا الزبانية ملائكة عذاب كانوا ويرنا ملائكة عذاب كأيان ويرنا كلا يعني بشر يعني عادة الزبانية ده هذا واحد الله استعماله يعني بوليسك حبسية ده مسؤولك كه ضدك حراء محابيستك عندك وهاي كواس الزبانية ليها لكن هذا waxa laga wadaa waa malaa'ikta naarta mas'uulka ka ah oo malaa'ikatu al'adab ayaa laga wadaa kalla haka jooge sida hadaaye la tuti'hu ati'i nabi maxamed oo warkiisa ha dhageysanin hana ka yeelin wasjud sujud oo rabbiga u tuko waqtarib dhawow oo rabbiga wax ku dhaweeyay iyo ridihiisa iyo naxariistiisa ku dadaal baa nabiga leeyahay sallallahu alayhi wasallam